waxaa jiraan ilmo yaryar oo agoon ah aan aabahooda nooleen oon dhar iida haysanin. koley waa ogtihiin qofka aabihiisa markuusa nooleen ee hooyadan waxba haysanin eeba shaqo fiican ilmeed ay ku kaalmaysay haysanin. koley waxaa jiraan dad caawiyo maadaama dad badan ay fikradan soo kama ahaan kaliya inaad ogaataan ee waxay kala jeedaan kaliya in wax wanaagsan aad baxsataan si ilaahay agtiisa idinkugu maraan. maanta haddii qof bini aadan oo aan farxad haysan aad ka farxiso adigaa farxad dhaba ilaahay ku siinayo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوياشينا قيمها بدن ميل والبا adduunka aad ka joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaal aan maanta ugu talagalnay inaan uga hadalno dhowr arrimo oo badan. marka hore aan kusoo dhaweeyay Leelife kusoo dhawaada brotherkii kusoo dhawaada muuqaalkan intaan muuqaalka arrimihiisa iyo uu guda galin arinta ugu weyn muuqaalka aan ugu golnayna horta waxay tahay waxaa jiro dad badan oo wanaagsan oo idin kamid ah oo annagana na daawada oo in badan fikirna siiyo khayr Allah siiyo fikiro qurux badan sidii markii hore aad ogeedeen ramadaan qeybtiisii hore barnaamijka caawinaada raggii fikrada nagu siiyay oo nagala qayb qaatay waxay ahaayeen dadkana daawanaya kamid ahaayeen si fiican. taasoo kale maanta haddana waxaa dhacday in dad intana soo wacaan in dhahaan waxaan rabnaa in la sameeyo barnaamijkaas mid la mid ah oo aan waxba ka duwaneyn in walaalahan masaakiinta ah ciida awgeed aan ugu farxino. khayr Allah siiyo dadkii soo gartay barnaamijkaas annagana waan u ogolaanay oo waan ka ogolaanay in aan arrintaas u qabano. waxay naga codsadeen inaan u sameyno yacni in dad aan u gaarsiino wixii ay soo dhiibtaan si fiican. okay iyo annaga marka hore iyagaana soo wacay oo noo bandhigay waan u ogolaanay. waxay kaloo naga sii codsadeen in dadka kale oo iyaga la mid ah oo barnaamijkaas rabana loo bandhigo si fiican. taas waa fahanteen oo maleynaa dad ayaa la soo wacay oo na dhahay sadaqada ama dadka masaakiinta ayaa rabnaa inaan farxadda ciida kala qayb qaadano aan ka farxino intii aan awoodno aan ciida ka bixino. markii aan ka aqbalnana waxay naga sii codsadeen oo ay fikir nagu siiyeen in dadka kale oo iyaga la mid ahne aan usii bandhigno oo hadda kuwana daawanaaba ay kamid yihiin. arrintaas ayaan maanta idin wadnaa hadduu ilaahay raada insha allah. intaan muuqaalka u guda galin waxaan rabnaa inaan halkan tacsi ugu dirno alfanaan daahdan nuurshe oo wiilkiisii shalay toole uu ku waayay ama ku geeriyooday magaalada muqdisho. waxaan leenahay samir iyo imaan allah kaa siiyo saqiir jana allah kaaga dhigo. Leelife waxaa leedahay wallaahi horta waxaan dhihi lahaa fanaankeena daahdan nuurshe maadaama cunugeeraha ka saqiiray saqiira qiralaha ka dhigay gowdhe waxaan dhihi lahay si xaaskiisa inuu ilaahay mid kale kheyr badan oo ilaahay siiyo si xaaskiisa mid kale oo ka fiican ay ku faa'iidaan oo ilaahay siiyo maadaama ilaahay ka jeclaaday. intaasaan dhihi lahay daahdan nuurshe samir iyo imaan allah idinka siiyo. meel maanta adduunka wanaagsan oo idin jiraa kii jannada idinkugu shafeeco qaada allah idinkaga dhigo aamiin ayaan idin leenahay. waxaan usoo noqonaynaa barnaamijkeenii. barnaamijka maanta waxaan rabnaa inaan uga hadalno waxay tahay waxaad ogtihiin waxaan fooda noogu soo hayso maalmihii ciida ahaa soo dad badan oo waxaa jiro runtii khayrka ilaahay fahansiiyey oo wax badan fahansan oo adduunkan joogo si fiican kuwaasoo kamida dadka anagana daawanayana ay aada u badan yihiin inay ku jiraan. dadkaasaa marka Leelife waxayna soo bandhigeen in arrintaas aan sameyno. maxaa ka leedahay adi ahaan? wallaahi horta waxaan dhihi lahay dadka oo barnaamijkaas noo soo bandhigeen horta aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaa jiraan ilmo yaryar oo agoon ah aan aabahooda nooleen oon dhar iida haysanin. koley waa ogtihiin qofka aabihiisa markuusa nooleen ee hooyadan waxba haysanin eeba shaqo fiican ilmeed ay ku kaalmaysay haysanin. koley waxaa jiraan dad caawiyo maadaama dad badan ay fikradan soo siiyeen ay noo soo direen in ilmahaas agoontu ay hadda ka farxiyaan. koley kii dadka ka farxin lahaa ilmaha agoontu waxay la mid tahay iyagoo ilmahooda ay ka farxiyeen dhar iid u soo gadeen. koley ilmo waa ilmo laakiin waxaan dhihi lahaa kuwa wax kasii kheyr badan agoonta ah wax ugu tartid koley wax u samaysa ilaa xaggiisay kuu jiraan. ani ahaan waxaan dhihi lahaa horta ku mahadsantihiin dadka fikradaha noo soo dhiibeen oo fikradaha noo soo direen oo dhaheen waxaan rabnaa ilmaha agoon inaan iisino aan ilmaha kale sida ilmaha kale u iidaan oo kaleeto in ayagana ay u iidaan ay u farxaan dharkay rabaan u gadno
sidaas horta nagu dhaheen. waxaan dhihi lahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin inta rabta inay ku daydatan ilmaha agoonta inay qabtaanne waan soo bandhignay waa arkaysiin lambarkana shaashaduu saaran yahay haddii aad jeceshahay inaad nagala soo xiriirto haddii aad jeceshahay inaad barnaamijkan ka qayb qaadato haddii ilaah raad insha allah waxaad soo gartay oo soo bandhigay waa walaalihiin oo idinkoo kale ah sax walaalihiin oo idinkoo kale ayaa soo bandhigay oo annagana fikirkaasna fahansiiyey aad iyo aad ugu mahadsan yihiin idinkana khayr allah siiyo kama ahaan kaliya inaad ogaataan ee waxay kala jeedaan oo kaliya in wax wanaagsan aad baxsataan si ilaahay agtiisa idinkugu maraan sax maanta haddii qof bini aadan oo aan farxad haysan aad ka farxiso adigaa farxad dhaba ilaahay ku siinayo farxad weyn ilaahay xaggiisana wax way ku marayaan hadduu ilaah yiraahdo waxaana ugu khayr badan qof walaalka wax ka khayr badan ma jirto in qof walaalka oo aan farxad haysan aad farxad geliso maalinta ciidan waa dareemi kartaa farxadda meelaha ay tahay qof alaal qofkii jecel inuu barnaamijkaas kasoo qayb qaato waxaan leenahay welcome qofkii fikir naga siinaya waxaan leenahay welcome hadduu ilaah yiraahdo sida aan idin sheegnay dadkii soo bilaabay barnaamijkan ee soo gartayba maalmaha soo aadan iyagaa qayb qaadan doona hadduu ilaah yiraahdo insha allah muuqaaladana waa daawan doontaan waan idin soo gudbin doonaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah si walba ay wax u soconayaanna waa idin soo diri doonaa idin soo gaarsiin doonaa waxaan idin ballan qaadaynaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah in sida ugu wacan sida ugu mudan aan ugu adeegno dadka walaalaheen ee masaakiinta ah taasoo arrin ah mar walba aan u heelana hadduu ilaah yiraahdo insha allah idinkana soomaalida inteeda kale waxaan idinkula dardaarmi lahaa oo idin dhihi lahaa waa arrin loo baahan yahay in fikir la kala qaato lees caawiyo kii micnaha xoog dadku caawin karana inuu ku caawiyo kii hiil dadku caawin kara inuu ku caawiyo si fiican qof walba wax caawin kara inuu caawiyo walaalkiisa soomaali maxamed meel walba aad joogtiin kaliya ma aha kuwa wadanka joogan ma isku baahno kan dibada jira kan wadanka joogan ma u baahno qof walba soomaali meel walba adduunka ay ka joogaan waa isku baahan yihiin isku baahan wax haysato maanta haddii ay tahay xitaa laba qof oo wax haysato haddii ay tahay waa isku baahan yihiin si fiican marka mar walba waxaa lahaa soomaalida dad isku baahan waaye way isgarab qabtaan sida saxda ahna waa caawinaad badan oo isjecel runtii dad ilaahay garaad uu siiyey oo wax fahmid badan waaye si fiican waxaan ilaahay khayr ugu baryayaa dadkii hor ugu qayb qaatay barnaamijka afur walaalka ee aan muddo wadnay hadda waxaan soo gaarnay iidi haddii aad tobanka dambe waxaan sidoo kale ilaahay ugu baryayaa ayagana inuu khayr siiyo kuwa ka qayb qaadan doono waxaan si qaasa ugu duceynayaa kuwa gartay in barnaamijkan la sameeyo anaga noo soo bandhigay iyo kuwa kasoo qayb qaadan doono hadduu ilaah yiraahdo insha allah aylilah waa markaa horta waxaan dhihi lahaa dadka nagu xiran janalkeena ku xiran maadaama aad tihiin dad fiican oo fikrada noo keenayo an adduunka ugu jeclaa dad fikrad keena horta maadaama hadda annaga maalin walba aan ugu dhiiranahay inaan halkan soo fariisano inaan barnaamijyo tayo leh in soo gudbino si fiican idinka yimaadaan marka dadkan horta dadka dad fiican waa dad kumantada soo dhiibanaya waa aragtaniyo wayna soo hadlayaan wayna soo wacayaan waxay dhahayaan saan samee anaga saan inay sameeyaan qof aad jiro macnaa inuu dad caabiyo rabaa wuxuu la-yahay meel uu ka caabiyo meel u maro meel u maro la-yahay in wadan ajnabi qof wax lagu bixin karo inuu raadiyo oo qofkaas wax ku siin karo isagana sida uu soo dhiibo in loo dhiibo dadkaasoo kaleeta horta oo jiro dhowr mar hor dad nala soo xariirin way jiraan oo dhaana waxaa raasaxa dad masaakiin inay caabiyo inaan dhar u gado inaan ka farxiyo dad agoonaa jiro waxaan dhaha beel waa soo dhawaada horta fikradaha markaana siisiin oo kaleeto anagana waa isku imaanaa fikradihii waan isku keennaa afaantamo sida ugu wacna u qaadana aniga tiimkeyga saaxiibkeyga ciilow iyo farsamayaqaankeyga iyo kaamirabaankeyga cabdiqaadir abow dhammaan tiimka dhan sida u wada dhannahay marka waxaan dhihi lahay hor dadka issoo garto aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa leenii malayn jir macnaa dad le jafoole rababo wax kalaba sugeynin oo jafoole sugaa fikrad kan lahaynin laakiin waxaa ogaada inaad tihiin jafow keliya imika meel layska dhigo nolosha dhabta marka imaanaysiin anay arke sida kumentiyada usoo dhibtayna arkay oo wanaagsan tihiin horta waa mahadsan tihiin maadaama fikradaas noo keenteen dadka janalka ku xiran dadkan comments kaliya kuma eko aad waxaa arkaya in aad iyo aad inoo soo wacaan ay fikradana la wadaagaan dad comment kaliya ku eg maaha taasna ugu mahad celinaynaa
fikradooda commenties kaliya kuma eka wayna soo wacaan ها وعتان اللي wixii يقول wanaagsanayna tusaan ها waqti fiican nala qaataan سفيان runtii mar walba waxaan idin leenahay soo dhawaada waxaad tihiin walaalaheen صح dad micnaha isla simanaan nahay ها تسلم تسلمنا janaalkan annaga iyo idinkoo noo furan yahay waa noo wada dhexeeyaa هاي waqtiga walbane waa naga wada dhexeeyaa صح dhawaada gacan furan kusoo dhawaada walaalaheen waa ku mahadsantihiin fikradaha wanaagsan ee aad mar walba nala wadaagtiin runtii qalbiyadeena haddii la furi karo waa idin tusleenaysaa idin jecelnahay ها laakiin ma la furi karo waa ku mahadsantihiin mar walba fikradahana siisiin sida aad waqtiyada fiican nala wadaagtiin commentieskeena quruxda badan inkastoo dad yar isaga jiraan ها دد يرى سيجري كما تاس fiican ayaan idinku ilooweynaa intiina yareexo ها dadkiina fiican runtii dad wanaagsanaatiin ilaahay agtiisa kheyr ilaahay aadan kaga rajaynayna hadduu ilaah iraado barnaamijkanna wuu socon doonaa ilaa iyo beryaha soo socda hadduu ilaah iraado ها انت كده من ايده insha allah wuu socon doonaa qof alaal qofkii jecel inuu walaalkiisa farxad ciida kala qayb qaato waxaad naga soo wici kartaa ama aad nagala soo xiriiri kartaa nambarka shaashada saaran 2465 ود gabagabadii barnaamijka maxaa leedahay gabagabada barnaamijka waxaan mar labaad rabaa inaan tacsiyeeyo walaalkeen fanaan dayax dal nuurshe daahir maxamuud muuse dayax dal nuurshe waxaan leeyahay sakhiir jana allah kaaga dhigo nabad adiga iyo xaaskaaga amiin dadal kheyr qaban allah idin soo geliyo ها isku sabra sida ilmo badan oo weeshin insha allah hani dhilaa baay asxaabta